السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عوض waxaan isla fiirineynaa qaabka loo sameeyo waxa loo yaqaano buy iyo sell. Buy waa soo iibso waaye oo soo gado, sellna iska iibi oo yacni inaad iska gadid waaye. Waxaan sameyneynaa marka meesha ay ku qoran tahay application-kan ayaan imaanaynaa, Binance ay ku qoran tahay, ka bacdina waan ku dhufanaynaa. Akoonkaada marka halkan imaatid waa wejiga hore application-ka waaye. Sidaan ayaa kuu soo baxaysa marka. Halkan markaad imaatid haddii akoonkaada hadda aad samaysatay oo sidaan ay kuu soo bixi weydo sidaan meeshan home haddiise ku ahayn markets, trades, futures, wallets sidaan haddii ay ku ahaa weydo yacni waxba kaa khaldan waa inaad intaad baxdid aad soo bedeshid waaye. Qaybtan waa professionalka marka sida professionalka waxa waaye sidaan waaye professionalka waaye. Haddii qaybtan marka hadda aniga wejigan ii muuqda adinkan idiin muuqdo waa professionalka waaye. Haddii aysan professional ku ahayn marka inaad soo professional ka soo dhigatay laga rabaa. Xagee laga soo dhigayaa marka halkan imaanay meesha ay ku qoran tahay meeshaas kore ayaad ku dhufanay. Markaad ku dhufatid falaarta markaad ku dhufatid laba meelood ayaad ka bedeli kartaa ama meelahan wejigan kore ah ayaa waxaa ka raadinaya kelimada bro kelimada ah ayaa ka raadinaya ama Binance bro ayaa ka raadinaya. Haddaa kor ka weydidna meeshan hoose areadan hoose meelahan hoose ah waxaa ka raadisa waxa la yiraahdo bro ka raadi Binance bro ka raadi. Marka aniga Binance bro hadda ma isoo saarayo sababtoo ah aniga qaybta professionalkan hadda haysta. Adiga marka waxaa ka raadisaa Binance bro. Haddaan aniga aan ka dhigto fiiri qaybta basic oo nagu soo celi ma jeedaa. Qaybtan oo kale haddii adiga uu ku yahay marka qaybtan waa qaybta iska bedelisid waaye. Qaybtan square labadan falaarood discover portfolio sidaan haddii uu ku yahay sidaan looma baahno iska bedel marka maxaa sameynay meeshii hadda ayaa ku noqonay si aan markale kuu tuso fiiri qaybtaas kore ayaa ku noqonay waa ku dhufanay falaarta ka bacdina meeshan wejigan markuu kuu soo baxo waxaa sameynaysa ama qaybtaas kore ayaa waxaa ka raadinaya Binance bro qaybahan kore Binance bro ayaa ka raadinaya. Haddaa ka weydina qaybta hoose fiiri Binance bro ka raadi ama kelimada bro oo kaliya ah raadi ama Binance bro labadaas kelimado mid ka mid ah heli doontaa. Markaad heshid kelimadaas markaa heshid ku dhufo marka dhagsi wejigana sidaan kugu soo bax marka wejigana waa qaybta professionalka waa marka hadda waa isticmaalaynaa. Wejiga professionalka waxaa ku qoran oo ku garanaysa home markets, trades, futures, wallets meesha ay ku qoran tahay magac kale ku qornaa karo oo ah portfolio waxaas inay ku qoran tahay waa laga yaabaa mobilekaada marka loo fiiriyo. Si kastaba ha ahaatee si aan buy iyo sell u sameyno waxaan u baahanahay meeshii laga sameyn lahaa inaan imaano. Marka xagee imaanayna meesha ay ku qoran tahay markets marka waa suuqii wax laga soo iibsan lahaa waa. Marka suuqa haddaad rabto inaad aadid rabto inaad wax soo iibsato waa inaad lacag wadato waaye. Adiga marka si aad wax u soo iibsato marka Binance joogto waa inay akoonkaada lacag kugu jirta waaye. Anaga hadda marka lacag ma haysanaa si aan wax u soo gadano lacagta waa tan marka korkaas kore lacagta ka muuqato waaye. Bujeeda total balance meesha ku qoranta bujeeda akoonka marka adinka aan kugu talagalay ardada aan ugu talagalay inay maaragtay ku fahmaan sharaxaada waa akoon ardada u khaas ah waaye $53 dhibic 5 ku jirto. Marka lacagtaas adiga lacagta hadhow tadeer rabto ka badnaa karta ama ka yaraa karta laakiin mar walba waa inaad lacag haysatid si aad buy u sameeydo ama sell u sameeydo. Meel kale waa ka fiiri kartaa waxa kale oo ka fiiri kartaa wallet imaanay oo meeshan hoose ayaa imaanay ka bacdina waad ku dhufanay wallet marka ku dhufatid kadib waxaa ka sii dooranay meesha ku qoran tahay spot ayaa ku dhufanay ka bacdina waxaa imaanaysa meesha ku qoran tahay halkan hoose ku qoran tahay mujeda
horta kelimadan arag marka hore waa waxa waa USDT waa USDT. USDT maxaa waa marka inaad adigu lacag yacni dollar oo kaleeta ah lacagtii dollarka ahayd ee kriptada ka dhex shaqaynaysay ayaa waxaa loo yaqaanaa magaceeda USDT. marka waa dollarka waay. dollar hadda meeqaa noogu jirto marka anaga dollar kaasha meeqaa noogu jirto lacagtaana noogu jirto waa meeqa waay $48. marka dollarka xaguu ka muuqdaa calaamada dollarka waa tan halkan ka muuqato 48.37 halkaas nooga muuqata. marka waxaan haysanaa $48.37 halkaana imaanayna marka markets oo ku qoran tahay markets ayaan kusoo noqonay kabacdina waxaan soo iibsanaynaa lacag. tusaale lacagtaana soo iibsanaynaa lacagta ay ku qoran tahay sol lacagta ay ku qoran tahay amaya waxaan soo iibsanaynaa lacagta ay ku qoran tahay anti lacagta ay ku qoran tahay lacagtaan soo iibsanayna aaway waa lacagtaan waay. marka si aan usoo iibsano lacagtan waxaan ku sameynaa korkeedaan ku dhufanaynaa korkeeda markaan ku dhufano wax yar baan sugaynaa. markaan korkeeda ku dhufano lacagtan saana noogu soo baxaya waxaa noo soo bax marka laba meelood oo kale ah buy iyo meesha kaleeto ah sell. marka anaga hadda maxaan rabnaa inaan sameyno buy waxaan rabnaa inaan sameyno buy oo kelimadan ah buy ayaan ku dhufanaynaa marka si aad buy usoo dhahdin marka halkaan imaanaysaa. marka anaga meeqaan wadanaa lacag tusaale meeqaan rabnaa suuqa inaan ku galno waxaan rabnaa inaan suuqa ku galno $30 ayaan rabnaa suuqa inaan ku galno. xageen gelinaynaa $30 marka halkaan ayaan gelinaynaa. haye meeshaana waxa ku qoran waa lacag coinka aan iibsanayna qiimihiisa waay. meeshaana waxaa noo geli doono $30 markaan kusoo iibsano coinka inta aan ku helayno oo xabo halkaan ay noo soo geli doonta. marka $30 halkan markaan gelino meeqa xabaa heli doonaa marka 5 xabaa helaynaa 5tan xaba marka maxay tahay yacni lacagtii $30 adiga aad la baxday wixii aad ku heshay ayaa waxay noqdeen 5.1. haddii lacagta $30 ka badnaan lahayd ka waran meeshaan aad bedeshay inta haddaan $30 ka badin ka waran tusaale $100 aan ka dhigno 100 aan ka dhigno mujeeda meeqa xaba helaysaa marka waxaad helay 17 xabo dhibic hal ayaad helaysaa. 17 xabo halkii xabo oo kamid ah qiimihiisu meequu ku fadhiyaa waa 5.839 ayuu kugu fadhiyaa. marka maxaan sameynaynaa hadda anaga $100 kuma gelayna maxaan ku gelaynaa waxaan ku gelaynaa $30 ku gelaynaa marka 30 noogu soo iibiyaan leen. okay hadda haddaan rabno inaan iibsano marka isla hadda haddaan rabno inaan iibsano meeshaan kore ayaan bedelaynaa waxaan ka dhigaynaa market. meeshaan kore hadda limit ayay noo tahay waan bedelaynaa waxaan ka dhigaynaa market. maxaan sameynaynaa marka farta ayaan ku dhufanaynaa kilig ayaan ku siinaynaa kabacdina waxaa noo soo bixi doono dhowrkan qodob limit market stop limit trailing iyo waxaa loo yaqaan OCO. haddaba annaga keen u baahannaha marka annaga waxaan u baahannaha market aan u baahannaha oo ah midkaana dooranaynaa marka midkaana dooranaynaa market ku dhufa marka kor markaa fiirso marka maxaa noo soo baxay market ayaan dooranay sooma market ayaan dooranay hoos marka waxaan gelinaynaa $30 kabacdina waxaan taabanaynaa meesha ay ku qoran tahay buy anti maxaa waa marka anti inaan soo iibsano waay buy ayaan dhahaynaa marka meesha maxaa kaga soo baxay success maxaa waay macnaheedu waad ku guuleysatay shaqada inaad qabatid. marka annaga hadda maxaa naga baxay $30 badalkeedii maxaana soo galay coin ayaana soo galay. coinkii xaggee laga fiirinayaa marka waxaa laga fiirinayaa meeshaan hoose ay ku qoran tahay walletka wixii ku soo galay ee wixii kaa baxaba meesha ama ay soo galayaan ama ay ka baxayaan waay. marka annaga $30 naga baxday
badalkeedina waxaana soo galay $30 wax u dhigma oo ah coinkan halkan ku qoran coinkan. marka walletka ayaan kusoo noqonaynaa halkan ah, waxaan sameynaynaa waa fiirinaynaa marka wallet ayaan ku dhufanaynaa, walletka noogu dhufo ka bacdina halkan imaad marka mujeda. hadda coinka aan soo gadana magaciisu muxuu ahay anti ayuu ahay, waa kana marka coinka aan soo iibsanay magaciisu wuxuu ahay anti, marka waa kana mujeda anti ayuu ahay coinka soo iibsan. marka halkan fiiri anti waa coinka magaciisa waaye, meeqa xaba ayaan ka haysanaa anti marka 5.949 dollar ahaan meeqa u dhigantaa marka waxay u dhigantaa 29.76 senti, qiimahaas ayay u dhigantaa. marka coinka aan soo iibsana halkan ayuu noo soo galay. lacagtii marka hore aan haysano marka halkan fiiri, lacagtii marka hore aan haysano meeqa ahayd, waxay ahayd soo maahan $49, yacni waxay ahayd $48 ahayd. hadda hoos fiiri marka USDT horteeda fiiri $18 noo soo hartay dhibic 5. hadda coinkan aan soo iibsanay marka sidee la isaga iibiyaa marka sidee la isaga gadaa, waxaan tegaynaa meesha ku qoran tahay market ayaan ku noqonaynaa oo halkan ah market. markaan ku dhufano coinka aan soo iibsanay ka ahay wuxuu ahay anti ayuu ahay, anti ayaan korkiisa ku dhufanaynaa marka. hadda maxaan rabnaa inaan iska iibino coinkii aan soo iibsanay inaan iska iibin ayaan rabnaa, waxaan ku dhufanaynaa sell ayaan ku dhufanaynaa. ka bacdina waxaan sameynaynaa meeshaas haddii limit ku tahay meeshan kore aan ku tuso, meeshan kore limit haddii ay ku tahay, meeshan limit haddii ay ku tahay waa bedel waxaa ka dhigaysaa market ka dhig. marka waan ku dhufanaynaa ka bacdina waxaan dooranaynaa waxa loo yaqaano market ayaan dooranaynaa, market aan ku dhufan. kadibna waxaan taabanaynaa calaamadda 100%. meeshan waxaa ku qoran calaamadda 100%. maxaan sameynaynaa marka waa soo jiidaynaa falaartana soo jiidaynaa maxaan leenahay naga iibiyaan leenahay coinka. marka xaggeen taabanaynaa marka halkanaan taabanaynaa ama halkaas, macnaheedu marka maxaa waaye sell anti waaye lacagta leedahay naga iibi, waa iska iibinayna marka 100% aan taabanay success. marka mujeda success ayaa noo soo baxay. coinkan hadda waa iibin lacagtii nooga jirta marka marna waxaan dhahnay buy ayaan soo dhahnay annaga oo tegayno market anagoo tegayno. market marka maxaa waaye xaaliyan waaye haddeertaan qiimaha suuqa oo maraya iigu iibi waaye ama iiga iibi. markaan buy joognana market ayaan dooranay, marka aan sell joognana market ayaan dooranay. marka qaabkaas ayaa loo adeegsadaa waxa la yiraahdo buyga iyo sellka. lacagteeni hadda marka cash ayay noqotay, dollar caadi waaye, waad la bixi kartaa. xagan ka fiirinaynaa marka waxaan imaanaynaa marka leeto meeshay ku qoran tahay wallet ayaan ku dhufanaynaa. ka bacdina waxaan refresh dhahaynaa fiiri meesha marka hadday lacagta anti la yiraahdaa noogu sareeyo, lacag hadda ugu sareeyo USDT marka waa dollarkeena waay, dollarka annaga aan haysano ayaa la yiraahdaa USDT. marka USDT dollarka aan haysano meeqa waay halkan ka fiiri waa 47.75 senti waay. cashkeena waa haysana marka haddii aad rabto waa la bixi kartaa, halkan kala bixi kartaa, lacagtaana waa maaragtay waa adeegsan kartaa. sida loola baxay iyo qaabkaas iyadana markaan ka hadli doonaa, laakiin hadda waxaan ka hadlaynay qaabka loo sameeyo waxa loo yaqaano buy iyo sell. qaabka loo sameeyo buy iyo sell marka qaabkaas loo sameeyaa. qaybta kaleeto limitka qaabka loogu xirtana iyadana waan soo dhigi doonaa insha Allah hadda la yiraahdo. marka insha Allah caafimaad badan.